السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسابتك وحرن جنال كمركلة سودة واضح أدي هذا ومهزنتهين. هاي مدحوين ترامب إن أمرك للدول لبدي تضبط إلى صودا في وصوصاري والحريرة dadka wadanka qaxooti ahaan ku soo galay dadka viisayaasha lagu keenay isagoo mamnuucay wadamo fara badan oo 19 wadan haddana aan arkay ilaa iyo 30 wadan in uu doonayo inuu gaarsiiyo dadkoodu inay Mareykanka yimaadaan. Waxaa jiray dadka dacwaduhu ay u socdeen in dacwadahoodii hakad la geliyay kuwa green card-ka xareystay in la yiri interview ayaa dib looga qaadayaa isla markaana sharciyadaasi kala duwan la soo rogay iyo kuwa quseynaya dadka wadanka sharci darada ku soo galay. Haddaba waxa ay la soo xiriiray mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadanka soo galay sanadkii 2024 oo qaab visa intuu ku yimid markii green card-ka uu xareystay kadib oo farihii iyo sawirkii laga qaaday waraaq ballan interview loo soo diray. marka waxa uu inooga warramayaa bal interviewgaasi sida uu ahaa isagoo ii sheegay inuu ahaa interview adag markii interviewga laga qaaday kadibna maxaa dhacay. dad badan oo ballamo dhinaca green card-ka lahaa ayaa hadda ballamihii laga kansalay ama kuwa u ballansanaa in dhalashada ama baasaboorka ay qaataan interviewdeedii la kansalay kuwa la dhaarin lahaa oo interviewgu ku baasayna ballantii ayaa laga kansalay oo waxa la yiri dib u eegis ayaa lagu sameynaya. marka howlo fara badan ayaa ka socday. mukhtaar ayaa la yiraahdaa wiilkan Minneapolis ayuu ku sugan yahay. mukhtaar bal soo dhawow, adigu Mareykanka goormaa soo gashay, qaab noocee ah ayaadna ku soo gashay? cilmi waan dhawahay, waan mahadsan tahay. aniga wadanka waxaan soo galay 2023 May 18 baan imiday bishii 18 Mareykan imiday. aniga waxaan wadanka ku imiday waxay keentay xaaskay dacwado ay keentay wadanka oo qaab visa ah ku timid. iyo waxaan ku imiday qaab kan la yiraahdo visa entry-ga qaxooti ahaan baan ku imiday. aniga baasaboor Soomaali baan haystay marka qayb ayonta ay keentay aniga wadanka ayonta ay keentay. waa gartay. marka cilmi wadanka waxaan soo galay markaan wadanka 2023 soo galay isla sanadkii markaan dhamaystay 24kii bishii 7 baan xareeyay green card-kii. waa gartay sida sharciga hal sano markaad joogto waa inaad green card-ka xareysaa. bishii 7 baan xareeyay. markii aan xareeyay waxaan sugayay inuu ii soo dhaco green card-kaygu ima soo dhicin. isla bisi horta farihii baa la ii soo diray bishii 8 baan farihii maray. farihii markaan maray aan sugayay inuu ii soo dhaco imuu soo dhicin. bishii 10 dhexdeedii waxaa la ii soo diray abka dhexdiisa laga soo diray interview lay ballamin doono. marka waa bishii 10aad miya ee isla sanadka 2025. waa bishii 10aad ee 2024 ha. waa gartay. walaalo markii saa markii mataqaana afka sii soo dhacay waan iska aamusay shaqadayda iska batay hawshayda. ballantii mudday maqnayd aduu ilaa ku dhow sanad ku dhow ay maqnayd. sanadkan bishii 8aad bay ballantii soo dhacday marka. waa gartay. ballantii markii la ballamiyay ballanta waxaa kamid ahaa oo mataqaana la raaciyay inaan soo kaxaysto aniga xaaskayga iyo carruurtayda dhalashooyinka ciyaalkayga oo dhan aan soo qaato cidda halka inta meeshan ku dhalatay inta wadanka ku dhalatayba. waa gartay. ciyaalka qaybta mataqaana baasaboorada haystay waaweyn iyo xaaskayga oo baasaboorkeeda wata inay soo raacaan qof fiican oo mataqaana turjubaan uu soo raaco. marka turjubaankana adigaaba lagu yiri hore u soo wado. aniga lagu yiri turjubaan soo kaxaysaa. waa gartay. cilmo wiilkii turjubaanka ayaa ahaa wacay oo saaxiibanahay. wiilkii way raacay, xaaskayga waan kaxaystay, carruurta qaar kamid aan kaxaystay. meeshii waan galay. interview adag baa laga qaaday fara badan oo 500 oo su'aalood ku dhow. waa gartay. su'aalahaas su'aalihii hore safaaradda lagu soo weydiiyey way ku jireen. kuwa ka baxsanna way jireen. waa gartay. waxaad ii sheegtay horta interviewga markii aad tagtay qofka kaa qaadaya ma ahana qof kalena inuu garab fadhiyo computer haysto wax qoraya. bal arrintaas waxay nooga sheegtay. waxaa markii inankii turjubaanka aan weydiiyey waxaa garab fadhiday naagta ofisarada aan baasaboorka dadka interviewga. waa gartay. qofka kaa qaadaya ma ahana qof kale ayaa dhinac fadhiya. qofka kale garab fadhiya waxayd computer bay ku qoraysay su'aashii aan sheegay la weydiiyey ka jawaab way qoraysay. marka taasi macnaheedu waxay tahay in iyadu ay haysay interviewadaadii hore oo isku fiirinaysay hadda su'aalaha lagu weydiinayo kuwaadii hore inay isla yihiin. yaana kaa dhaafay waxaa kaloo haystay cilmi dokumentigii 2016 markii kiisku ii bilowday iyo ilaa maalintaas oo 2025 bisha mataqaanaa 8aada wixii dokumenti ahay kolba ama green card aan ku xareeyo ama dacwadaan ku soo maraya dhamaystirna meesha ku hayay. waa gartay. waxay haysteen meesha waxa u buuxay warqado aad u fara badan meesha ku haysteen oo mataqaana ku saabsan macluumaadkayga. waa gartay. marka interviewgaasi haddii aad qiyaasato muddo intee la eg ayuu socday?
inuu interviewgaas wacalo wuxuu socday aduu ugu yaraan 45 daqiiqo meelaha. waa gartay marka su'aalaha ka baxsan kuwii horey lagu soo weydiiyey markii processku ku socday kuwa cusub maxaad ka xasuusataa oo lagu weydiiyo kugu cusbaa kuwa cusubni waxaan ka xasuustaa waxaan hadda mataqaanaa sharciyada cusub ee Mareykan ee ka jira mataqaanaa dadkan gurigaaga ma kuula nool yahay qof aan sharci haysan. waa gartay Mareykan inta joogtay jeel ma gashay ma lagu xiray. marka waa su'aalo haa iyo maya inta u badnaa miya haa iyo maya u badnaa haa su'aaluhu waa su'aalo inta badan maya bay u badnaayeen su'aaluhu inta badan. waa gartay wadanka kollama ka baxday oo inta wadanka ka baxday ma soo laabatay muddadii aad joogtay macnaha intaad baxday ma soo laabatay waa gartay waxa kaloo kamid ahaa dhalashada ilmahayga oo malaha 7-8 jeer lagu celiyay yani inaan mataqaan kala hadlo bal inuu qofkan mataqaan isbedel kala hadlo. marka taariikhda ay dhasheen lagu weydiinaya carruurtaada taariikhda ay dhasheen ilmaha baa la weydiinayaa. waa gartay kuwii wadankii ku dhashay iyo kuwii halan ku dhashay ba sharciyadooda mataqaan maadaama dhalashooyin wada Mareykan haystaan baa dhalashada la weydiinaya. markan hadda sheego su'aalo 10 ama 20 baa la weydiin haddana waa lagu soo celinayay. waa gartay haddana markaan wado haddana waa lagu soo celinayay. waa gartay marka su'aalahaas la weydiiyay ugu dambeyn marka su'aalaha dhamaystana waa lagu dhaarinaya waxa aad sheegayso marka hore soo gashay waa lagu dhaarin marka si baxsan lagu dhaarin waxa aad sheegayso inaad run ka sheegayso lagu dhaarin. waa gartay marka cilmigu su'aalahaas way jiraan saas la weydiiyay interviewgaas la iga qaaday interview adag buu ahaa waqtiga mataqaana aan meesha joogay waxaan dareemayay xogaa culays ka dareemayay. waa gartay oo macnaha si fudud interview fudud ma uusan ahayn wareysi fudud ma ahayn wareysi fudud ma ahayn interview fudud ma ahayn qofka marka meesha fadhido culays baa soo wajahaya culays baa dareemaysaa oo kolba wiilka mataqaana tijaabka ayaa aabay wuxuu ku lahaa waxa mataqaana hadhiin stage waa iska su'aalo iska caadi weey stage ku lahaa. waa gartay marka ma adiga oo kaliya su'aalo lagu weydiinay mase xaaskaada iyo carruurtaadana su'aalo waa la weydiiyay qolka iyaga markii ay soo galeen meesha la arkay waxa la fariisiyay meel dhinacaas banaanka la fariisiyay halkaas ka fadhiya lagu marka kaligaaba qol lagula galay iyaguna meel gaar ah bay iska fariisteen. keligii baa qol la galay keligii baa qol la galay aniga iyo wiilka turjubaanka qolka wada galay labada qof kale way sii joogeen xataanka interview gabadha qaadaysay iyo gabadha kale wax qoraysay. waa gartay marka arrintan waxay u muuqataa inay ba ahaydba intii hadda amaradan aysan soo bixin laakiin hadda amaradan cusub oo Trump dadka green card-ka xareysanaya iyo kuwii uu xareysnaa iyo kuwa qaxooti ahaan ku yimidba in sharciyadii la sii adkeeyay. interviewga markii uu ku dhamaaday kadib iska bax ayaa lagu yiri maxaa dhacay markaas kadib. interviewga markuu uu dhamaaday waxay ugu dhaaheen iska bax kiiska go'aan ka soo gaaraynaa markaan go'aan ka soo gaarno macluumaadka aan soo siin doona waan iska tagay hal maalin kadib warqad bay soo direen in la soo abuurfay oo waa lagu ogolaaday green card-kaadi ah waa lagu ogolaaday green card-kii haa kadib maxaa xigay 3 maalin kadib green card lafta way soo dhacay marka adiga 5 maalmood kadib markii aad interviewga martay green card-kaadi waad heshay 5 maalmood kadib haa markaan interviewga markay green card-ka waan helay. marka arrintaas sidee kula muuqataa marka maadaama inta badan aan ognahay dadku markay green card-ka xareeyaan in muddo sanado ah uu ka maqnaada qaarkood oo ay sugaan in green card-kii loo daabaco oo la approve gareeyo wareysigan ma isleedahay waxa uu fududeynayaa qofka in green card-kiisii si dhaqso ah loogu ogolaado haddii uu qaab sax ah Mareykanka ku yimid. waxaan dadka kula talin lahaa qofka mataqaana markuu interviewgan marayo horta lambar 1 inuu sii ka haysto qofkii wadanka keenay qof loo dacwado haduu yahay. waa gartay qofkii wadanka keenay oo sharcigiisa wata inuu sii ka haysto inuu mataqaana interviewga markuu marayo meesha qofkaas ay wada socdaan saa uu maro haddii mataqaana asaas dhacdo saa ku maro wixiisu waa horu ka helaya saan aaminsanahay sidii mataqaana mataqaana hawshu igu dhacdo kale aad baa ugu fududaanaysaa laakiin qofkii haddii ay wax ka dhantaalmaan waa laga yaabaa inay waxoogaa dhib noqoto oo caqabad ay noqoto laga yaabaa. aad iyo aad u mahadsan tahay Mukhtaar waa kaaga mahad celinaya wareysigan waxaan filayaa dad fara badan oo ka cabsi qabay interviewga ama wareysiga lala yeelanayo muxuu yahay in hadda fikir ay ka haystaan oo ay isku diyaarin karaan haddii balan wareysi noocaasi ah dadka green card-ka xareystay ama hadda kadib xareysanaya haddii ay rabaan in ay inta green card-kooda ay helaan waa kaaga mahad celinaya Mukhtaar wareysiga. aywa la soo kala cilmi aywa salaam alaykum.